waa mid ka mid ah hubka waaweyn ee ka dhexdhacaya hoteelka Xayaat ee magaalada Muqdisho habeenkii labaad. Hadda waxaa gudaha hoteelka ka soconaysa xabad aad u fara badan oo isweydaarsanayaan xoogagii habeen hore weeraray hoteelka Xayaat iyo ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya oo weli ku howlan inay la dagaalamaan xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday hoteelka Xayaat ee ku yaala number 4 magaalada Muqdisho. weli ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dhacdadan, laakiin dad badan oo maanta miidiyaha la hadlay waxay sheegayaan in ka badan 40 qof inay ku geeriyoodeen, tiro intaasi ka badana dhaawacyo ay soo gaareen. laamaha amniga waxay mar walba sheegayaan in saacadaha iyo daqiiqadaha soo socda ay howlgalka soo gabagabeynayaan, laakiin marba marka ka dambaysa waa mid sii cuslaanaya. waxaa la sheegayaa 2 xubnood oo ka mid ah Al-Shabaab oo hubaysan in ay ku jiraan gudaha hoteelka Xayaat ee magaalada Muqdisho. dhismaha hoteelka oo ka kooban ilaa 4 biyaano oo dabaq ah ayaa ilaa iminka aanan sahlanayn in ay soo gabagabeeyaan ciidamada ammaanka Soomaaliya. dariirta halkan ka soconaysa meelo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho, daryinka madaafiicda ee hoteelka ka soconaysa ayaa laga maqlayaa. afayeenka dawladda Soomaaliya ee dhinaca booliiska waxa uu ilaa iminka ka hadlin xaaladda halkan ka jirta. weli saxaafadda waxa ay ku dhowdahay xaaladda halkan ka jirta, laakiin ilaa iminka ma hayno warar intaan ka madax bannaan oo caddaynaya in dagaalka halkan ka socdo uu noqon karo mid soo gabagoomo caawa iyo mid sii socon kara intuba. si kastaba ha ahaatee, hoteelkan Xayaat ayaa ah markii labaad oo ay soo weeraraan Al-Shabaab. Cabdicasiis Okay, University TV, Muqdisho.